shirkan qiimeynta oo loo qabtay maarayaasha 42 laamood ee hay'adda adeegga lacagaha yaryar ku leedahay gobolada maamul magaalooyinka iyo degmooyinka deegaanka ayaa ahaa mid guud oo lagu qiimeynayay adeeg bixinta hay'adda waxaana qiimeyntan ka soo qayb galay wasiirka xafiiska madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Xasan Maxamed Xuseen oo ah gudoomiyaha guddiga hay'adda iyo mas'uuliyiinta hay'adda adeegga lacagaha yaryar ee Somali Microfinance shirkan qiimeynta ayaa diiradda lagu saarayay shaqooyinka ay hay'addu ka qabatay sanadkan gabagabada 2013 goldolooyinkii ka jiray dhanka shaqada adeeg bixinta bulshada iyo sababaha keentay gaabiska iyo sidoo kale shaqooyinka wanaagsan ee hay'addu qabatay iyo guud ahaanba geed socodka shaqo ee hay'addu sidoo yahay iyo anshaxa shaqaalaha wasiirka xafiiska madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Xasan Maxamed Xuseen oo qiimeynta furay ayaa sheegay in ay hay'addani 10 sano u dambeysay shaqaynaysay balse sanadkan 2014 ee taariikhda dalka ay u diga roganayso Shabeelle Bangi wax qabadkii la soo dhaafay lagaga hadlayo laguna qiimeynayo wixii wanaag ah ee jirayna in ay la xoojiyo oo la sii wada ay mudan tahay wixii dhaliil ah ama goldolooyin ee ka jiray in laga saxo oo hadda kadib wax laga barto cashar laga qaato dibna aan loogu noqon oo loogu celinin dhaliilaha jiray wadadii laga bixi lahaana la qorsheeyo mudan sanadka 2014 kana qorshihiisa in wada jir head office-ka ama xafiiskan heer deegaan iyo branchiyadu u wada diyaariyaan iyagoo wada jira qorshaha ay diyaariyaan qorshaha wada jirka lagu diyaariyo ee laga qayb qaato ay laamuhu ka qayb qaataan waxa uu keenayaa in si wada jir ah loo fuliyo qofku markii uu qorshaha ka qayb qaato wuxuu dareemayaa in uu isagu qorshaha leeyahay marka qorshahana way isla diyaarin doontaan haddii la yiraahdo qorshe macquul ah oo attainable maadaama muddo dheer oo 10 sano ay microfinance institution soo shaqaynaysay qorshaha hadda la diyaarinayo mid ku cusub noqon maayo kii hore oo continuation-kiisa noqoni in loo qorsheeyo oo loo diyaar garoobo 2014 sidaan bangi uga shaqaysiin lahayn marka fursadii deegaanka Soomaalidu uu raadinayo bangi oo Soomaalidu leedahay inuu sameeyo halkii aan ka raadinayna meel ka sahlan oo ka dhow ayaanu ka helay oo ah in microfinance institution loo wareejin karo bangi saadarteed bangi waxaan go'aaminay inuu noqdo Somali Microfinance bangi inay noqoto marka la go'aamiyay dokumentigeedii wixii la dhameystiray minidadii iyo wixii shuruudo u ahaa waa la dhameystiray waxa loo gudbiyay oo la hordhigay National Bank of Ethiopia hay'adda adeegga lacagaha yaryar ee Somali Microfinance oo shaqaynaysay muddo gaadha 10 sano taasoo bulshadu ka heleen maalgelin iyo adeegyo horumarineed ayaa muddadii ay shaqaynaysay ku guuleysatay waajibaadkii shaqo ee loo asaasay waxayna hay'addan adeegga lacagaha yaryar ay sanadkan u dalici doontaa bangi ganacsi hay'adda adeegga lacagaha yaryar ee Soomaalida Somali Microfinance waxay leedahay qiimeyno rubucle 6 bilood leh 9 bilood leh iyo sanad leh kani waxaan ku qiimeynaynay wax qabadkii sanadka 2013 wixii qorsheysnaa wixii noo qabsoomay wixii aan qabsoomin iyo asbaabtii qabsoomi waayay isla markaana waxaan ugu diyaar garoobeynaa qorshaha ama halkan ku dajinaynaa iyadoo ay joogaan dhamaan wakiiladii laamaha kala duwan ee Somali Microfinance 42 ah qorshihii sanadka 2014 si ayaga ay goobjoog uga noqdaan maadaama fulintiisa ayaga ay yeelan doonaan